wadanka oo la yaabka badan qaaradda aan ka soo jeednay ee Afrika wadanka Ghana haddaba wadankan ayaa ah wadan la yaab badan oo ka duwan wadamada kale ee caalamka wadanka Ghana hadii aad ku dhimatid naxashkaaga ee meedka lagu qaadayo waxa lagaaga dhigayaa markii aad nooleed wixii aad ka shaqeyn jirtay hadii aad farsamayaqaan ahayd markii aad nooleed hadii aad dhimato naxashkaaga waxa lagaaga dhigayaa farsamadaada hadii aad rooti la ahaydna waxa naxashkaaga lagaaga dhigayaa ama maxaan ku laga sameeyaa wax sida rootiga u samaysan hadii aad baylood ahaydna sidoo kale hadii aad beeraley ahaydna naxashkaaga sida sabuulka ayaa loo sameeyaa waana lagugu qaadiyaa wadankan ayaa noqday wadanka ugu yaabka badan ee caalamka maadaama qofka markii uu dhinto geedka meedkiisa lagu qaadayo laga dhigayo markii uu noolaa wixii uu markaasi ahaa hadii aad xatay markaasi aad markii aad nooleed ahaan jirtay qof company ka shaqeeyo kale companygaaga waxa uu soo saaro ayaa markaasi naxashkaaga lagaaga dhigayaa sidoo kale hadii yani wax walba oo markaad nooshahay aad tahay hadii aad dhimato naxashkaaga isla geedkaas ayaa lagaaga sameeyaa oo markaasi lagaaga dhigayaa dad badan ayaa wadankan la yaabay iyadoo markaasi madaxweynaha wadankan Ghana oo markaasi sheegay in markaasi arintaasi uu baraarujinayo oo yani la sii weyneynayo maadaama uu wadanka uu ku caanbaxay qofkii isagoo nool wuxuu sameyn jiray hadii uu dhinto in laga dhigayo kale waa wadan la yaab badan bal adiga hadii aad horay markaasi u aragtay warbixintan comment noogu soo qor hadii hadda kuugu cusubtay kula yaab badan tahayna comment noogu soo qor ani way ila yaab badan tahay maadaama markii ugu horeysaan arkay ay tahay wadanka Ghana ayaana dadka markaasi maxaan ku raadayay taga waxay ka shaqeeyaan ayaa laga dhigaa marka waa wax la yaab badan xataa hadii aan markaasi ciidan ahayd ama askari aad ahayd qoriga aad ridaysid ama xabadiisa ayaa laga sameeyaa meedkaaga kan lagu qaaday kaas laga sameeyaa ma fahanteen marka waa wadan aad u la yaab badan oo yani dadka oo dhan ay la yaaban yihiin oo la leeyahay wadankani bal maxaan ku raadayay la yaabkiisu wata hadda markaas harqaan la ahayd sidoo kale wax harqaanka u sameeysan isla naxash sida harqaanka u sameeysan ayaa laga markaas lagu qaadiyaa sidoo kale hadii markaas markii hore aad nooleed aad ahaan jirtay ani waxaan dhahay dadka oo markaasi maxaan ku dhahaye suuqa dharka ka gado kala bal muxuu markaasi laga sameyn karaa naxashka haddana wuxuu noqday wadanka yani ugu farsamada badan maadaama de qofkii markii uu dhinto wax waliba oo markii uu noolaa uu sameyn jiray maadaama naxashka lagu sameynayo sameeyntana sida wada ogtiin farsamay rabtaa oo in la farsameeyo u baahan tahay naxashka markii tusaale qofka uu wuxuu ahaan jiray tusaale hada rootiga oo kale hada balafiir kan se u sameeyay ilaa baad ku dhaariyay ma farsamo kale ayaa dhiman ma sicid ka farsamo badan wadanka Ghana ayaa jirto hada kan rootiga loo maleeyo u jeedaan ma u jeedaan sida uu yahay maxaan ku sida rootiga la cunayay isagoo weyn oo caaga oo naxash ayaa laga dhigay marka wadankan waa wadanka Ghana waa wadanka oo la yaabka badan sidoo kale waa wadanka maxaan ku yiraahdaa oo wadamada kale ka duwan oo yani la yaab gooniya leh wadamooyinka waxa waa la yaabi wiileeyihiin wadan walba waxba dhaqan u ah balse wadanka Ghana dhaqan wuxuu ka dhigtay qofka markii uu noolaa wuxuu u sameyn jiray in markii uu dhinto meedkiisa lagu qaado soo wax ajiib badan waana wax igu la yaabka badan hadana nimankan ay u jeedaan afartan ay u jeedaan waa meed sugayaal qofka dhinto ayay qaadayaan naxashkana dad baa sameynaya dadna meedka sina u qaadayaan waa la kala baxay ma fahamtay waxa waa wadanka Ghana daa tagtidna shaqo ma weynaysid waxa waa farsamadana dhinaca ka baranay qofkii dhinto naxashkana qof baa sameynayo dad baa sameynayo dadna waxay maxaan ku u diyaar garoobayaan inay naxashkaasi ay qofkii ku qaadaan marka waa wadan aad cajiib ah